maanta waa run dagaalka al-shabaab aan ku jirnaa midnimaan u baahanaa waa run dalkanagii ayaa qayb ka mid ah waa la qaadanayaa la leeyahay midnimaan u baahanaa laakiin waxaan rabaa inaan soo qaato xaaladahan iyo duruufaha aan ku sugannahay iyo dadaalka noo yaalla weligiisuu jiri jiray madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke allah u naxariisto markuu ra-iisul wasaaraha ahay 1964 halhayskii uu noo sheegay maxay ahayd beriga gacanna waa ku codaynaynaa doorashaa socotay gacanta kalena dalkan ku difaacaynaa waa 60 sano ka hor waxa uu sidaa yiri maanta ma waanay valid ahayn maanta maalinteedii ma waanay joogin inaan gacanna dowlad dhisidii iyo horu socodkii iyo dalkii aan ku habayno gacan kalena aan muxuu argagixisada isaga celina ama ciidina soo hunguriyeynayso oriyaa naga tag aan dhaano oo aan saas xooggeena iyo caqligeena iyo aan ku geyno isugu geyno Soomaaliya maanta maalin ay midnimo xagga ra'yiga ah ay uga baahi badan tahay ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan waxaan ballan qaadaa inta suurtagal oo qof bin aadan sameyn kara ama uu xoog iyo juhdi caqli geli karo inaan xoog iyo juhdi caqli geliyo dadka Soomaaliyeed waliba siyaasiyiinta maamulada siyaasadda dadka doorteen oo mas'uulka ah isku ra'yi inay noqdaan oo hal meel ay uga soo wada jeestaan aaraada qaranka ah waliba national agenda local agenda waa lagu sii kala duwanaa dabcadeena kala duwan laakiin national agenda kuma kala duwanaan karno inaan ka midaysnaano waa waxaynana laakiin waxaan rajaynayaa markaan saas leeyahay dadka ay nagala dhaxayso doodaas oo dhan oo haday tahay mas'uuliyiinta iyo madaxda iyo hay'adaha dawlad goboleedyada iyo haday tahay kuwa federaalka intaba assumption-ka aniga aan waxay tahay dad mas'uuliyiin ah xilkas ah dalkan inuu hor u socdo raba inay yihiin caamil الناس على قدر عقولهم qof walba ilaahay intii ra'yi uu siiyo uu shaqeynayay ra'yigiisa caqligiisa ka badan ma shaqeyn karo laakiin rabitaanka waxaan qabaa in ay maxaan ku iraahdaa kulligood dad wada rabayeen markaad ra'yi la timaado tir aan meeshan maxay ahayd dastuurkan 12 sano laga soo shaqeynay max plana khubara ka noqotay UNDP ka noqotay xagga ka noqotay intaas oo milyan oo dollar lagu bixiyay intaas laga dhacay maanta aan goosan waxa soo dhan inaan xal noo ahayn dastuurka xoolo iyo caqli Soomaaliyeed lagu dhameystira wadanka Soomaaliya gudihiisa lagu dhameystira dibadda loo qaadi maayo waa awoodna ummadahu dastuurkooda dib dawladaha burburay in badan oo kamid oo dastuurkooda dib u eegay 9 maalmood ay ku dhameysteen ay dastuur ku yimaadeen dastuurkan la imaanaynaa waa dokumenti dad qoray ogaada 100% sax ma noqonayo منزل إلهي حقي سكسو دقي معها بني آدم كنا ضعيف وايها نحكمه وقت قال نحكمه برا لسي بدليا ما قبنا إيه وحبان سير نجاها ولكن الدستور وكنا أمام حوها بقول كيف أنت أنا الدستور حتى أنا أقولانين أنت صوت نوابحين ما ندقدقين وإحنا لما نردين تارم أفر بلوطة أفر سنة سوري تارم أفر سنة 8 bilood kamid hal shaqo oo la qabalahayo meel loo fadhiyay waxaan u maleynayaa inaan lagu degdegin waxa rabaa dalka inuu sheego baarlamaankan maanta jooga shuruucdii oo ansixiyay kal fadhigii hore hadaanan la ansixi lahayn deynta lama cafi lahayn baarlamaanku shuruucdii amniga khusaysay ee uu ansixiyay hadaanu ansixi lahayn cunaqabateentana laga ma qaadi lahayn institutions keenu markay shaqeeyaan oo shaqada laga raba ay qabtaan markaasna muxuu ahaay shuruucdaas dad badan ay la qumaneen oo ay wax ka qabay kuwaaba qabay badeenta yaan la cafinin oo dad gaar ah maslaxad ku qabo kuwa qabay hubka yaan la qaadin cunaqabateento kuwa gaar ah hub helayo ma jirto walaalayaal shaqa dawlad Soomaaliyeed ee isxigxiga ay soo qabteen yaa meeshan timiday dastuurkana sidoo kale waxaan rabnaa inuu muxuu ahay meeshaas uu ka baxo taas intaasaan rabaa inaan uga baxo waxaan rabaa inaan ku soo laabto baryahan warka Socday haddana inta laga dhawaajiyay dawladda Itoobiya iyo annagana dhex taagan waxa maanta annagii dawladda Itoobiya dhex taagan ma khuseeyaan horta Somaliland wax Somaliland u gaar ma aha dadka reer Somaliland u gaar ma aha
مسؤولين ترير سومالان قار كميدا هداي قلدمين أيها قلدمي مركا عيب iyo cambaarayn ay ku muutaysan yihiin dadka Soomaaliyeed ma jirto laana wayna tuseen dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan waxa ay rabaan iyo waxa dhibaya iyo waxa ay diidan yihiin waana tuseen cod dheer ay noogu sheegeen looma qaadayo dawladda Ethiopia marar badan waa sheegay haddana inta waa laga sheegay doorasho aan isdooranay daris ku manihin inaan anagu isdooranay oo aan is soo xulanay درسكم منين إله درس نقدقي وأنا صو أهين بريها نسيد موقتواسي أهانينا هل أوبشن أن نوفرن علاقات كاين إنه أسكو في عناده صاحب بإنا أهان مصالح ذا نقد حيصور إنا وذاقنا كوا هدان أن إصلاح مرسنو لبدين لنعب فإذا نولا إنا كشقين أوبشن أن نوفرن كاسوات لكن dhulka Soomaaliyeed aan qaadana si meel aan maro on badda u gaaro aan u helo markaan badda gaarana intaasan haddana badda leeyahay maya waan diina taas mana dhacayso waqtiga isaga dhuminina ma dhacayso